Xidiga kooxda kubadda cagta Horseed Farxaan Xidig ayaa galabta ka soo muuqan doona safka naadiga Horseed xilli laacibkan kulanka ugu dambeeyay dhaawac loogu saaray ciyaartii weyneed ee labada kooxood Horseed iyo MCC wada ciyaareen. Kooxaha Horseed iyo Dekedaha ayaa galabta ku ballansan garoonka tuulada Sports Stadium Muqdisho kulan qaybka horyaalka Soomaaliya Premier League waana kulankii ugu dambeeyay ka ciyaaraan labadani kooxood fasal ciyaareedka 2020-2021. Horseed ayaa sanadkan u hanweyn inay soo afjarto abaarta dheer ee ka haysata ku guuleysay la'aanta horyaalka Soomaaliya Premier League. Farxaan ayaa dhaawac ugu baxay kulankii ay kooxdiisa barbardhac Ebrika la gashay naadiga MCC isagoo kulanka laga saaray qaybtii dambe ee ciyaarta. Dhammaan taageerayaasha kooxda Horseed ayaa aad ugu naxay dhaawaca xidigan maadaama uu ka mid yahay ciyaaryahanada ugu wanaagsan naadiga caawiya maalin Horseed. Laacibkan ayaa dhaawac wuxuu ka soo gaaray lugta midig dhanka qoobka ama canqowga hadba sidaad u fahmaysid, balse iminka waa u time kooxiisa inuu galabta wajaho naadiga Dekedaha. Farxaan ayaa ka soo muuqday tababarkii ugu dambeeyay kooxda Horseed ay sameysay ka hor kulanka ay galabta ay la ciyaareyso, taasoo lagu xaqiijiyay caafimaadkiisa taamka ah inuu galabta wajihi karo kooxda Dekedaha. Farxaan ayaana sanadkan ku riyoonaya inuu ku guuleysto kabta dahabka uusan weligiisa ku guuleysanin goolalinta, balse tartanka goolalinta waxaa iminka haya fooqa sararna saaran ciyaaryahanka kooxda Hegan Cabdiqaadir Aadan Eino Benteke kaasoo leh 12 gool, waxaana loogu hayaa Farxaan 3 gool oo nadiif ah maadaama ciyaaryahan Farxaan uu leeyahay 9 gool. Dhaymankan kooxda Horseed wuxuu ugu soo biiray naadiga Otobaarka Gaadiidka sanadii 2018 isagoo iminka waqti fiican la qaadanaya naadiga caawiya maalin Horseed. Si kastaba haatee, laacibkan ayaana qulubta u qaboojiyay taageerayaasha daacaddu ee kooxda Horseed kadib markuu xaqiijiyay inuu taam u yahay kulan galabta inuu wajaho kooxda kubadda cagta ee Dekedaha.